maanta waxaan ku sugannahay dhagax guure oo ka mid ah goobaha taariikhiga ah ee ku yaala Somaliland. goobtan dhagax guure waxay dhowr kiiloomitir dacalka waqooyi ka xigtaa degmada Arabsiyo. safarkan maanta waxa igu weheliyaa Maxamed Ismaaciil oo meelo badan safar ku tagay ama dalal badan booqday. afarta qaarad waxay dhiman maxay ahayd Australia, New Zealand, Indonesia, Malaysia, Thailand, Sacuudiga, Khaliijka Carabta dhan, Masar, Morocco, maxay waa soo tagay ka Zambia, maxay Zimbabwe, Zanzibar, Tanzania. laakiin waxa ka wacan markaad waddankaaga joogtid aad aragtid meelo sidan oo kale ah oo dalxiiska loogu talagalo aad daawanaysid wax aadan hore u arag. adduunku waxa ugu fiican inaad aragtid wax aadan hore u arag. yani waa maasha Allah waddankeena waxay leedahay meelo badan oo taariikhi ah. dadku ma yaqaanaan inta badan. hadda waxaan garanayaa qaar badan oo saxaabnahay weligood halkan ma imanba may aragba ama may maqalba. marka kaalayo eega waddankeena daawada qaar ba intay soo dhoofaan waxay imanayaan Burco Hargeysa waxay joogaan xaafad kadibna hodelkii Ingiriiska ku noqonayaan meega waxa arkayba adduunka mar baad nooshahay mar labaad noolaad maysid kaalo soo dalxiis arag indhaha ku arag yaa laga sheekeen TV-na ka daawan waa kuwa maasha Allah. imisa meeloodo taariikhiga Soomaaliland ku yaala baraka imika maxay ahayd Soomaaliland xeebtan maray ilaa waxaan tagay Aldaraad xiis Karin Mayd maxay ahayd Arigaabo Gadubiyaas intaa oo dhan maxay ahayd hawdka waa intoo tagay. laakiin waxaan ka helaa waxyaalo badan maaha waxa imika jira wax hore u jiri jiray yani 100,000 sano ka hor imika talaba kale waxa weeyaan waa nabi ciise ka hor 2,000 sano ka hor subhanallah chance ka dad heshid maartay ka faa'iid waliba ku yaala halkan calaamado muujinaya in halkan dad calaamadaha inta idin muuqdo ka dhiman ya aqal rabbaaniya waa waxa weeye kaaf العربي اللي يقول هذا انجليزي waa كيف qolka ay xaggaas laga soo galaya yar adoo gurguranaya xaggaas soo galaysaa seeqaysaa seexanaysaa daaqadina waa taayar adoo gurguranaya ka baxaysaa. waxaan maqli jiray Qurayshta iyo kaafkii ay gali jireen iyo ee lagu dhiman jiray waxa waa ka